Ma ogtahay in Ciraaq ay weerar ku qabsatay Kuwait kuna dhawaaqday inay tahay gobol ka tirsan sanadkii 1990. Arrintan waxay ka dhalatay dagaalkii ugu dhiigdaadinta badnaa ee ay la gashay Iiraan intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1988 oo socday 8 sano. Intii uu socday dagaalkaasi Saddam Hussein wuxuu lacag aad u badan ka amaahday Kuwait iyo Saudi Arabia, taasoo keentay in deynta guud ay gaadho ku dhawaad 80 bilyan oo dollar. Ciraaq waxay ku cadaadisay Kuwait in laga cafiyo deynta, balse Kuwait si adag ayay uga diiday dalabkaas iyadoo dhaqaalahooduna si weyn ugu tiirsanaa dhoofinta shidaalka. Ciraaq waxay ku eedeysay Kuwait inay jebisay xeerarka OPEC iyagoo soo saaray shidaal ka badan intii la ogolaa, taasoo hoos u dhigtay qiimaha shidaalka isla markaana waxyeello u geysatay Ciraaq. kadib 1990 Ciraaq waxay weerartay Kuwait, waxaana 2 maalmood gudahood dalka Kuwait oo dhan uu galay gacanta Ciraaq. Qaramada Midoobay waxay isla markiiba soo saareen cunaqabatayn ka dhan ah Ciraaq. Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo dalal Carabeed ayaa uga digay Saddam Hussein inuu ka baxo Kuwait, balse waa uu diiday, wuxuuna ku dhawaaqay inay tahay gobol ka tirsan Ciraaq. Markaas Mareykanka oo ay weheliyaan Saudi Arabia iyo dalal kale waxay bilaabeen howlgal lagu magacaabo Desert Shield, iyagoo diray ciidan isbahaysay oo aad u ballaaran. Saddam Hussein weli waa uu diidanaa inuu ka baxo Kuwait ilaa January 1991. Isbahaysi ka kooban 34 dal oo uu hogaaminayo Mareykanku waxay bilaabeen duqeymo cirka ah oo waaweyn, Operation Desert Storm, kuwaas oo cirka Ciraaq ka dhigay mid cas ama uuro ku xidhay. bishii February weerar dhulka ah oo socday kaliya 100 saacadood ayaa ku qasbay ciidanka Ciraaq inay dib u gurtaan, waxaana la xoreeyay Kuwait. Markii uu lumiyay Kuwait, maxaad u malaynaysaa tallaabada uu qaaday Saddam Hussein? mar rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqeysto income iyo dhaqaale inaad ka samaysid online-ka. haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing-ka, affiliate marketing-ka, cryptocurrency iyo digital products-ka sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo, iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqeysto. kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas, halkaas ayaana kugu soo diri doonaa. igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.